kusoo dhawaada barnaamijkeena xogta caalamka. Anigu waxaan ahay Maxamed Axmed Xirsi. Channelku waa Xogfur Media. Fadlan haddaad nagu cusub tahay ha ilowin inaad channelka subscribe saarto. Maanta waxaynu dib u milicsan doonaa taariikh qarsoon oo aad iyo aad u weyn, boqortooyadii Ajuuraan iyo sidii ay u maamuli jirtay ganacsiga badaha. Soomaaliya ma ahayn dal kaliya, waxa ay ahayd xarun ganacsi oo isku xirta Afrika, Aasiya iyo Yurub. Haddaba su'aashu, sidee ay Soomaalidu u noqdeen boqortooyo dhanka badda ku awood badan? boqortooyada Ajuuraan waxa ay ahayd mid ka mid ah nidaamyadii ugu horumarsanaa ee Afrika ka jiray qarniyadii dhexe. waxa ay dhiseen nidaam dawladeed oo xooggan, waxa ayna si buuxda u maamuleen ilaha biyaha iyo ganacsiga. laakiin waxa ugu yaab badnaa awooddooda badda. ganacsatada Soomaaliyeed waxa ay isticmaali jireen dabeelo si joogto ah u socda oo u oggolaanayay maraakiibta in ay safraan xilli go'an. Tani waxay ka dhigtay in ay noqdaan xirfadlayaal dhanka badda ah. waxa ay ganacsi la lahaayeen Soomaalida, Shiinaha, Hindiya, Carabta iyo waddamada saaran biyaha Mediterranean-ka. waxyaabaha la kala iibsan jiray waxaa ka mid ahaa xoolaha, foox, dahabka iyo dharka. magaalooyinka sida Gandarsha iyo Muqdisho waxa ay ahaayeen xarumo ganacsi oo caalami ah. Muqdisho xitaa waxa ay lahayd lacag u gaar ah, taas oo muujinaysa heer dhaqaale oo aad u sareeya. ganacsatada adduunka ayaa imaan jiray. Soomaaliyana waxa ay ahayd xarunta isku xirta dhaqaalaha dunida. boqortooyadan waxa ay saameyn ku lahayd ganacsiga u dhexeeya bariga iyo galbeedka. waxa ay ahayd isku xirka Aasiya, Afrika iyo Yurub. ganacsigaas ayaa dhisay dhaqaalaha iyo sumcadda Soomaalida. taariikhdan waa mid aan inta badan aan la sheegin, laakiin waxa ay muujinaysaa awoodda iyo hal-abuurka dadka Soomaaliyeed. haddii aad rabto inaad wax badan ka ogaato barnaamijyada taariikhaha qarsoon, ilowin channelkeena inaad soo follow gariso. sidoo kale isla channelka YouTube-ka aynu ku leenahay subscribe aad saarto. anigu waxaan ahay Maxamed Axmed Xirsi. intaan dib u kulmi doono, nabadgelyo.